munaasabadda walaal maalintan weyne ciida dhexdaada waxaynu salaan qiimelo u diranaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka ciidamada qaranka ee kala duwan dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba gaar ahaan dadweynaha reer Gabiley waxaanu leenahay walaalayaal munaasabadda ciida maalmaha qiimaha leh Ilaahay karaameeyay fadligooda Ilaahay waxaynu ku weydiisanaynaa inuu nabadda iyo xasiloonida Ilaahay noo adkeeyo wanaag iyo horumarka inoo wanaajiyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala roob la'aanta aynu ka cabanayno Ilaahay naga soo furto culimadeenu runtii walaalayaal wayna la hadleen khudbadda sheekha iyo waanada isuduwaha iyo culimadii ka horeysay dhammaantood waxay ahayd dardaaran ay nugula dardaarmayeen inay runtii arrimaha keenaya roob la'aanta ee macsida aynu dib uga noqonno in la iscafiyo in wanaagga laga shaqeeyo Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa dardaarankooga kuwii weelayay inuu inaga dhigo dardaarankooga waxba lagu dari maayo Ilaahay ha inagu anfaco ducadoodiina Ilaahay ha inoo aqbalo intaasaynu Ilaahay weydiisanaynaa walaalayaal marka inta laga yimaado waa runo si ay sudugu sheegay waqti waa kooban yahay laba fariimood uma sheeganaa mid waxa weeyi waalidiintu magaaladeena dhaqanaan hore u jirin baa jira dhaqanadaasi cid ay ka soo fulayaan waa awlaadeennina dee waalidkii baa jooga waalidku inay awlaadda fiiro gaar u yeeshaan oo aad iyo aad uga warhayaan ciidanku dee nabadgelyadii inoo ilaalin maayo isagoo nabadgelyadii cadceedda 24 saacadood u taagan oo cadceedda iyo rafaadka u taagan inuu ammaankeenna ilaaliyo oo ina kala ilaaliyo haddana ka shaqayn maayaan awlaadeen iyo dee tarbiyadooda moobiladay qaadanayaan xashiishad bay cabayaan waalidkay dhibayaan waa duruufo jiro weeye mid kasta marka la soo qabtana waalidkii oo orday oo masaajidku ku jiray laba imanaya da xaqiiqdu isqarin mayso aad iyo aad baan runtii waalidka ugu adkeynaa inay awlaadda ka warhayaan Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala awlaadda ha inoo barakeeyo anagoo ka dawlad ahaan iyo ka gol deegaan ahaanba waxyaalo fara badan baa runtii qorshaha noogu jira oo ay koow ka tahay in waxbarashada hoose dhexe si caruurta yaryar akhlaaqdooda iyo aqoontoodaba hoos looga soo dhiso oo ilmaha yar isagoo dhisan akhlaaq ahaan iyo aqoon ahaanba runtii u yimaado ama u koraan runtii waalidka ku gacan siinaya macallimiinta hase yeeshee dardaarankaas runtii soo adkeynaa walaal marka inta laga yimaado fariintayada labaad waxa weeyi golaha deegaanka ee cusub marka qorshayaasha kale horumarineed oo gadaal ka sheegi doona laga yimaado waxaynu ka mid nahay magaalooyinka Soomaaliland waxaynu ka shaqeynanaa bilicda iyo qurxinta magaalada taana waxaanu idinka baahannahay gacan magaalada waxa kaga dhawaaqanaa insha Allah ta'ala inuu gobolkeena ka bilaabi doonaa olole la yiraahdo nala qurxi Gabiley olole la yiraahdo nala qurxi Gabiley muwaadin nala qurxi Gabiley baanu idin leenahay haddaan nahay golihii deegaanka qurxinta Gabiley inaga magaaladeenu waa nadiif oo inagoo iskaashanaynu ka shaqeynay hase yeeshee quruxda magaalada iyo nadaafadeeda inuu rabnaa bilicdeeda inaynu sii xoojino afar qodob baynu ololaha ku beegsananaa laba qodob waynu la dagaalamanaayo waa dhagaxa iyo garanwaaga labada shayba soo barqaati kabaniin inay foolxumo ku hayaan magaalada iyo dhibaato ama ha lagu turaanturoodo ama hayna mudaan ama xashiishka ay noo qabtaan ee labadaasiba waa laba dhibaato weeyi gacmahaynu isugu taganaa qoys wal iyo qof walba waxaynu rabnaa inuu ka qayb qaato sidoo kale waxaynu sameeynaa dhiraynaynu magaalada u dhirayno markaynu labada ololaha ku qaadno waynu dhiraynanaa layr baynu ku xidhanaa anagu layrka wadooyinka waanu sii xoojiyeynaa dadkana waxaanu rabnaa guryahooga gaarka inay iftiimiyaan oo guluubaad wajahada ku xidhaa qurux iyo iftiimin iyo ammaan mooyaane culays kala keeni maayo sabtida haddii Ilaahay yiraahdo waa maalinteena koobaad ee ololaha nala qurxi magaalada maalintaas sabtida kaliya waxaynu ka shaqeynaa inaynu dhagaxa gacanta saarno oo aynu ururino meelaha la geynayna dawladda qorsheynaysa wiiga ku xiga khamiista ku xigta isla dhagaxaynu ku noqonanaa khamiista ku xigta garanwaagaynu ka dhiganaa
qorshaha annagaa runtii idinla wadaagana agabkeeda meesha la geynayo xagga dambaynu insha allahu tacaala iskaga sheegi doonaa laakiin waxaanu idinka codsananaa inaynu magaaladeenna qurxisanno oo aynu waddankeenna horumarkiisa ka shaqayno oo aynu dhulkeenna hoos u eegno aad iyo aad baad u mahadsantihiin